qofka sidiisaba waxa uu ku jiraa noloshiisa marka uu kowga yahay laba xaaladood. xaalad waa positive, xaaladna waa negative. xaaladda positive-ka ah marka uu ku jiro waxa uu ku jiraa xaalad aad iyo aad u fiican. waxa uu ku jiraa xaalad faamiliga uu fiican yahay, asxaabta ay fiican tahay, environmentiga ama deegaanku aad u fiican yahay, waxyaabaha ilmihiisu qabanayaana ay fiican yihiin. saa darteed qofkaasi wuxuu ka fakarayaa wax positive ah ama aad iyo aad u wanaagsan. xaaladda labaad ee cagsigeeda ayaa waxay tahay qofku inuu ka fakarayo xaalad negative ah. waxa uu ku jira xaalad adag, waxa uu ku xidhan yahay meel, waxa uu ku sugan yahay marka xaaladda ama faqri ama lacag la'aan ama xaalad diiqa ah ama cidhiidhiyoon ah. waxa uu ku jira xaalad aad iyo aad u adag, xaaladdaasoo ku khasbaysa markaa negative thinking inuu ka fakaro waxyaabaha negative-ka ah. sideedaba waxa qofku muhiima inuu xasuusnaado. nin ka mida ayaa waxa uu yidhi raggii hore, haddii buu yidhi aad ku xisaabisid wixii maadiga ahaa ama wixii tegey mustaqbalkaaga ah waa khalad. waayo buu yidhi nebiyada qaarkood adhi ayay soo raaceen, iyagoo adhi soo raacay haddana waxay guul ka gaareen nolosha bini'aadamka. waxayna noqdeen leaders ama hogaamiyayaal ummada iska dhan. saa darteed ayaa waxaa lagaa doonayaa inaad keligaa aad kaashatid naftaada oo aad ku kalsoonaatid. sideedaba waa inaanad ka khajalin gefka ama khaladka aad geshid, waayo haddaad khalad geshid waxaa tahay adigu bashar. laakiin waxaa khalad ah inaad ku soo celcelisid khaladkii aad gashay oo haddana aad ku andacootid waxay ahayd wax qadar ah. ha u ordin sideedaba inaad ku guulaysatid keliya hal shay, balse u orod inaad noqotid qof qiimo leh. qofku hadduu maro sideedaba waddo dad fara badan ay mareen, waxa uu gaadhaa isla waddada dadkaasi ay gaadheen oo kale. laakiin hadduu maro waddo kale waxa uu gaadhaa waddo aan hore loo gaadhin qof ka horreeyey isaga. markaad wax noqotid, saaxiibkaaga runta ah ayaa ku ogaada ama saaxiibadaada ayaa ku ogaada. marka aad adigu hoos u dhacdid ama aad hoos u ciirtid waxaad ogaataa saaxiibadaada dhabta ah ee markaa ku dhowdhow. waxaan sideedaba haddaynu nahay bini'aadan aragnaa waxyaabaha aynan rabin, waxaynu aragnaa waxyaabaha aynan heli karin, waxaynuna aynaan arkin waxyaabaha inoo dhowdhow. markaasaa waxaa qiimo beela waxaynu arkaynay saynu u raadinayno waxaynaan arki karin. ma garanayo buu yidhi mid ka mida raggii hore sirta guusha, laakiinse waxaan garanayaa buu yidhi sirta qofka marka faashilka, taas oo ah inuu qofkaasi uu ka fakaro inuu dadka uu qanciyo dhammaantiis hareerihiisa ku sugan. adiga sideedaba ma tihid murugada, ma tihid qof xun, adigu ma tihid walwalka, ma tihid miisaanka markaa culayska aad adag tahay, ma tihid kalarkaaga, ma tihid noociyadda ama jinsiga tahay. adigu waxaa tahay makhluuq ilaahay abuurtay kuwa ugu qaalisan. waxaa tahay bashar ka ugu fiican ee ilaahay abuuray. waxaa tahay qof aad iyo aad u fiican oo guul samayn kara. waxaad samayn kartaa wax kasta oo maskaxdaada ku jira. ma garanayo waxaad ka fakaraysa inaad garto iyo waxaad doonaysa inaad qabsatid, laakiinse ha noqoto jaamacad laga qalanjibiyo, ha noqoto shaqo weyn oo la qabto, ha noqoto wax soo saar, ha noqoto kambani ama shirkad la horumariyo, waad samayn kartaa. waad awoodi kartaa inaad samaysid, waad awooddaa inaad samaysid, waad ku guulaysan kartaa.